way baxaytay munaasabad la kadaa furaaye xarunta bangiga caalamiga ee IBS ee magaalada Baydhabo way baxa ku qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed wasiirka ganacsiga wasiir dawladda maaliyadda wasiir ku-xigeenka dhalinyarada ciyaaro gudoomiyaha gobolka Bay kan degmada Baydhabo xildhibaana mas'uuliyiin ku dareerta rugta ganacsiga Koonfur Galbeed madaxda jaamacadda Baydhabo ururada bulshada aqoon-yahanada bahda saxaafadda Cabdirasaaq Sheekh Xasan oo maamulaha IBS ee Koonfur Galbeed iyo Cabdirasaaq Cilmi Maxamed oo madaga laamo IBS ee adeegyada bangiga iyo ku hadalay ujeedada munaasabada iyo walyaabo bangigu soo qabadawa geegan may badaa furdaane oo hornahni ka shaqeeyay meeleeray baranjigi si meeleeray bulshada Koonfur Galbeed gaar ahaan bulshada ku nool Baydhabo iyo on ka faa'iideysadaan meeleeray bangiga IBS كل بنك IBS سوس مجاشي بكم موقت ما يبغى بنك international bank of Somalia ما يبغى ما يلراي يسوع هاتوكو هرك شقة مجال مقدسة ما يبغى كلها إلا يوسيد حرونتي إنكو هريتي أو بنك اسكفور الجبل ما يبغى نجاتي حرونتهم بيدو بنك IBS وبنك إليه كان حسب الصوماليات لا أساسي سنة كي لبضة كون سدحية طبنكا لا نفر سنة كي لبضة كون إيو أفر طبنكا لكن نفر المجال مقدسو بنجي IBS وكسو هذا حل باهي بنجيات لغبو وقدن كسيد أكتهم بربركي كدب وحكجر حوالده وحبا سوا قبتين ضدك سوماليين وحبا سوا عاوي إن بسنسيدا سوماليا يكون حرمان بسنسيدا كلها دونكا أيضا magaalada Muqdisho lacagtii laga process gareeyo ee doon maraysa banki to bank ee gaaraysa dhammaan adduunka sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee gudaha ka shaqeeya ee reerahooda degan yihiin dalka dibadiisa ayaa waxay u suurtagelinaysaa in lacagahooda familkooda ku gaarsiiyaan gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Yasir Asmi xaragan ku jari xarunta IBS ee magaalada Baydhabo way bana IBS bulshadii aan hayte adeegyada duban oo faa'iido leh Maxamed Ali Xasan wayba wasiirka ganacsiga Koonfur Galbeed wayba uu sheegay intii hadhawaayeen adeegyada bangiga uu ku fuliyahay Koonfur Galbeed oo ka amaanay doorashada iyo hadooradan Koonfur Galbeed qayb kamid bangiga oo IBS oo faraciis ka horeeyay ama qaybashay kala duwan gobolada ka yalan xaruntiis weyn xamar ka taal wala idinka faraxsana inuu qayb ka naqana bangiga adeegyada dadku siyo inuu qayb ka naqana howlaha bangiga haayano howlo badan maalgelinta iyo shaqooyin badan haaye accountada isu furaayeen waliba account international adeegyada isu biyo wali kuma Mastercard isu biyo eedan ka faa'iiday adduunyada meel aad ka isticmaali karto saasartii marka wali argaan in fursad niyaad oo hana marti reer Koonfur Galbeed ahaan waliba xarunta baranjiga inta hadda lagu furay Baydhabo wali jar doonay baranjiga kale iyo kulli iyo qorsheyn deegaanada kale iyo deersii doona adeegan wali sameeyeen sidoo aragna xamar bay soo biyeen real estate ama guriyo dhisan oo iyo design qurux badan oo facility guriyaha baahnaayeen iyo ansuubiyaan si fudud raqiis in la kookado ama la kookirayo marka fursadahaas wali rajeen dhalinyarada awoodan in la hayn geekintii guri gadan ama dhisan guriyaha iyo ka raaxaysan karaan fahmi karaan intii magaalada lanka dhisa saas darteed marka farxadan intii baranjiga geeka official in furo oo daafur waan kulli eedan ma hasantiin ka dhawaada walaha ka dhawaayay marka gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Cabdulqaadir gelinta iyo shaqooyin badan haaye accountada isu furaayeen waliba account international adeegyada isu biyo wali kuma Mastercard isu biyo eedan ka faa'iiday adduunyada meel aad ka isticmaali karto saasartii marka wali argaan in fursad niyaad oo hana marti reer Koonfur Galbeed ahaan waliba xarunta baranjiga inta hadda lagu furay Baydhabo wali jar doonay baranjiga kale iyo kulli iyo qorsheyn deegaanada kale iyo deersii doona adeegan wali sameeyeen sidoo aragna xamar bay soo biyeen real estate ama guriyo dhisan oo iyo design qurux badan oo facility guriyaha baahnaayeen iyo ansuubiyaan si fudud raqiis in la kookado ama la kookirayo marka fursadahaas wali rajeen dhalinyarada awoodan in la hayn geekintii guri gadan ama dhisan guriyaha iyo ka raaxaysan karaan fahmi karaan intii magaalada lanka dhisa gabagabadii gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulqaadir Shariif Sheekuna iyo bulshada Koonfur Galbeed ka baaqi intii ku faa'iideysadaan adeegyada shal duban ee IBS iyo bulshadan ka tira galanga usana ka amaanay
madaxda bangiga fursado yoon abuureen ardayda jaamacado iyo ganacsatada usoo sheegay intii waqtigii lanka taragaliyo hakeedenga IBS waa ku faraxsanahay servicekan iyo adeegan ay soo gaarsiin magaalada Baydhabo runtii waxa kaliya aan ku amaanay IBS waxa way waxaan xasuustaa waqtigii doodan ay aan bilownay magaalada Muqdisho ee ahayd madaxdii IBS aan isku aragnay mahadii ugu horeeyay waa fikir yar oo miiskan iskala sheekeysano ahaa in loo baahan yahay bangi IBS Muqdisho laga soo qaado la keeno adeeg gobolada runtii aadan ugu amaanahay muddadii yareed ee koobnada ay qabsadeen ay yiraahdeen in adeegan lagu soo gaarsiin doono magaalada Baydhabo oo noqotay meeshii ugu horeysay marka laga soo tago Muqdisho adeegaas ay ka furaan ATM-ka la keeno wasiiradu waa isla soconay waa xasuusana muddo dhoweed markii aan horyaal aan ka furnay ATM-ka maanta in bangiga marka branchigiisa laga furo IBS aad ugu faraxsanahay runtii waxayna ka mid tahay siyaasadda dowladda koonfur galbeed ee madaxweyne Cabdicasiis uu hogaamiyo in la dib loo soo nooleeyo adeegyadii iyo dhammaan adeegyadii aasaasiga bulshada u baahneed si loo kobciyo marka dhaqaalihii gobolka runtii waa idin amaanaya waana ku mahadsantiin marka insha Allah martiqaadkan aad ugu martiqaadeen hambal aan idin leenahay IBS waybwa bangi caalami ah marka la ku reeba magaalada Muqdisho waybwa meelinka horeyti oo dowlad goboleedyada xarunyo kuweel dhadan Baydhabo waybana wadaana intii magaalooyin kale koonfur galbeed tan Baydhabo lamid ay ku furanga Shukri Ismail Ahmed Warsan TV Baydhabo